waxaan ku sugan hotel xaraf hareerteeda waxaa taagan afhayeenka mid kamid ah beelihii deegaanada Celfin iyo gobolka Sanaag iyo sidoo kale waxgaradka beeshaasi ugu horreyn waxaad ii sheegtaa waxaad ka cabanaysaan iyo waliba xaaladda deegaanada waxaan ka cabanaynaa goof ay jabadaasi ka asaasantay waxaynu ogeyn in maamulkii degmada Ceerigaabo iyo waxgaradkii iyo saraakiishii iyo taliqeebeedyadii iyo agaasimayaashii iyo xildhibaanadii beesha garxajis bari la baxday inay goof isugu tagtay in maayarkii dhex fadhiyay in taliqeebeedyadii dhex fadhiyeen in salaadiintii dhex fadhiday in madaxdii xisbiga wadani ay dhex fadhiday in nimankaasi halkay nabad kaga dhawaaqay lahaayeen nimankaana kala diri lahaayeen ciidamada wixii dambiilayna soo qaban lahaayeen in ay nimankaasi ku dhawaaqeen iyadoo maayarkii degmada Ceerigaabo uu dhex fadhiyo Ismaaciil Xaaji Nuur inay ku dhawaaqeen inay isku mid yihiin inay jabada taageersan yihiin inay isku fakar yihiin inay dagaalka ku wada jiraan inay colaad halka ka cilaamiyeen shirkii kale ee ka dhacay meesha la yiraahdo gacan libaax isaguna wuxuu cilaamiyay oo natiijadiisa ay noqoto gabagabadiisa ka soo baxday in suldaanka guud ee beelaha garxajis uu cilaamiyay inay dagaalka ku biirayaan tolkoodna ay garab istaagayaan waxaan anigu markaa halka ka cadeynaya in dagaalkaasi dagaal garxajis u yahay in dagaal siyaasadeed uu yahay in suldaanku horena ay ugu jireen $100,000 oo iyo $100 milyan oo lacag ay ku qarash gareeyeen hubiya saaradna ay bixiyeen in tijaarta ugu waaweyn hudheelada waaweyn Hargeysa kule ay $100,000 ku bixisay in qurba joogu $100,000 ku bixiyay in arinta ay u mileysnaayeen horena ugu jireen dagaalka 3 sano ka socdayna ay iyagu wadeen aanay hadda ku biirina uu arintaasi hore u jirtay waxaan kaloo halkan la yaabanahay in xukuumadii wadanka maamulkeeda iyo nabadgelyada ay haysatay in gobolka Sanaag ay ku wareejisay jamada in shaqaalihii dawladdu nimanka jamada asaasay yihiin in shaqaalihii dawladdu ay waxa weeyaan nimanka waxa asaasay ay yihiin in jamada dawladdu ku wareejisay saraakiishii iyo shaqaalihii iyo askartii biciiday arinta wax ka qaban lahayd nimanka nabadgelyo xumada wax ka qaban lahayd la soo bedelay waxaan halkan fariin uga dirayaa beesha harti iyo Puntland garaadada iyo salaadiinta waxaan leeyahay Cabdiwali Gaas boqorrada beeshii baanu nahay siyaad baraxiiligii uu wadanka ka baxay ee la jabiyay nabadgelyada sugtay ee iyadoo kumanaanku ku kala dhinteen garada shirka ku qabatay ee nabadgelyada maanta Soomaaliland iyo Puntland ku jirta u sababaha waxaanu idin sheegaynaa oo idin ka codsanaynaa hubka aa soo bixinaysaan jamada garxajis soo sinaysaan Puntland Soomaaliland lagu weerari maayo dawladda Soomaaliland lagu qaranka Soomaaliland lagu weerari maayo reerka biciida la yiraahdo baa lagu weeraraya naga eed la aado arinta wixii aad ka gashaa nabad ha ahaato fariintaas waxaan u dirayaa garaadada iyo dawladda federaalka iyo farmaajo iyo Cabdiwali Gaas iyo boqorrada ugu horeeya boqor Burhaan arinta nimanka dhuuxwaysyada aasiiseen iyo waxa aasiiseen iyo hubka suunaysan naga joojiya ayaanu idin sheegan idin ka codsanaynaa meesha laba beelood baa isku dilaya dawlad Soomaaliland oo hub lagu weeraraya soo bixinaysaan ma jirto iyagana intaasaan gaarsiinaya madaxweyne Muuse Biixina waxaan leeyahay gobolkii jamad baa la wareegtay dilkii labaadna way ka samaysay natiijadii labada shir ka soo baxay in Cabdulqaadir wuxuu sheegay fulinteeda shalay dhacday nin baa halka lagu dilay reer miyiga oo dhaan wata oo la jarjaray oo waxa weeyaan meel laga aasan la waayay ninkii horena Ceeriyaan baa lagu dilay gobolkii jamad baa la wareegto ku wareejiseena ama wax ka qabta waxa weey anagana rag iyaga iyo saraakiisheedu waxay ku dhimanayaan faranta hore ee Puntland bay farantooda tukaraq bay ku dhimanayaan ragga la mid ahaa ee saraakiisha ahaa iyo ka ka goostena waa ka reer miyiga dhaanka wada leynaya waa kuwa ragga tuulada jooga ku leynaya waa kuwa wareegaya xasuuqa geysanaya ee baabuurada ku baaranaya bancadiya karamaan arinta waxa weeyaan si degdeg ah waa in wax dawladdu ay xukuumadda uga qabato hadii kale dadka waa inay afbay ku wada hadlaan ama colaada ku heshaan marka siyaane waa inay iskaga horbeydhaa intaasaan anigu ku soo koobaya sidoo kale jaamac maxamed ducaale cabdi jaamac diiriye iyo axmed mahdi saleebaan mid ah waxgaradka mid ka mid ah beelihii dirirtu ku dhex martay muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada Celfin iyo gobolka Sanaag oo iyaguna ka hadlay colaadaasi ayaa yiri ay inay shalay lagu dilay tiknikada lagu weerarayo oo Puntland laga soo qaatay waxa aan kale oo sheegaya waxaan la yaabanahay waxbaanu samaynaynaa bay dawladdu tiri hal laga qaado bay yiraahdeen ciidamada wixii labada reer ah waanu ogolayn anagu lagama soo qaadina kuwayagii baa laga soo qaaday kuwii kalena waa lagu reebay waa kuwa rag laynaya kuwa darar weyna kuwa jooga ee beesha ka mid yihiin waxay xiriir leeyihiin ninka la yiraahdo Care bay xiriir leeyihiin wuxuu joogaa garka u dhow darar weynu joogaa tiknikadiisana la joogaa maanta tan waqtigan uu joogo shalayna wuxuu ku dilay ciidankiisu wuxuu ku dilay nin reer miyiga guri ka dhaansanaya waxaan la yaabanahay waxa ay dawladdu uga jeedaan la yaabanahay hubmaanaan waayin ragmaanaan waayin waxaanu ilaalinaynaa bilaadanimada
waxaanu ilaalinaynaa bini'aadanimada waxaanu ilaalinaynaa wixii aan loo tashan inaan laga aanay dhicin haddeer waxaanu leenahay dawladdu 24 saacadood haddii aanay wax kaga qaban waxa halkaa ka dhacay 24 saacadood haddii aanay wax kaga qaban waanu tashanaynaa qoliga kontonka jeer lagu gafay ee salaadiintii guud colaadda wado ee kuwii bari joogay colaadda wadaan ee aanu annakii saayidka nala ka wado ee dilxumada nala ku sameeyey ee aanu annakii nabadda doonayno yaa taan la yaabanahay waa taa haddeerna waxaan leeyahay dawladdu khaladaad badan bay ka indhaqarsatay annagu khaladaad badan baanu ka indhaqarsannay 7 nin baa dheeraad nala ka wada oo kii u dambeeyey sheegtoo la dilay ma garata wax la googooyey iyo wax la gubayna waa jiraan ma garata ilaahunbaa wax cadaaba rag la gubay baa jira rag la googooyey baa jira aad moodo in suqaar laga dhigaayo waxa weeyaan wax badan baanu ka indhaqarsannay dawladduna si toosay uga indhaqarsatay waxaan leeyahay haddaan si degdega isbeddel looga helin reerkaa waxa weeyaan dee cidna indhaqarsan mayso bini'aadan baanu nahay ummadda waxaan u sheegaynaa intaanu dul qaadanayna iyo intaanu adkaysanayna ma inaanu adkaysannay in garxaj iyo aanay u kala hadhin ay u dhan yihiin ujeeddada ay ugu dhan yihiin waxa weeye qaar baa argaabo ka mudaharaaday qaar baa berbera ka mudaharaaday qaar baa hargeysa ka mudaharaaday qaar baa hargeysa ka hanjabay waxaa waa la isku raacsan yahay gowsaab ee saguda ka xidhiidhsan baa la yidhi dagaalkaa waa loo dhan yahay annaga habar jeclo uma dhamma looma hadal cid alla cid nagu taageersan ma jirto waxaa la doonayaa xasiloonida iyo deganaanshaha inay waddankanu ku faanay caalamka iibiyo inay suurtagal noqoto in la helo luqmaan maxamed faarax bulsha TV hargeysa